soonka markii uu yimaado waxaa jira kuwa tuuga ah oo soonka ajarkiisii qofka ka bililiqaysta oo weerar ku soo qaada oo ka qanimaysa ayaa jira waxaa ugu horeeya telfaaz telefisyon hadduu guriga ku yaallo waa musiibo la isku soo diray xasanaadkaagii iyo ajarkii aad shaqaysan lahayd oo dhan buu kaa xiraya markaasuu wuxuu kuu dhibayaa aflaam musalsalaad xariir ah oo aan kala go' lahayn dad badanna waxay sameeyaan xilligaasayba soo dhigtaan telefisyoonada oo guryaha ay soo xidhaan oo waxay yidhaahdaan ramadaanka ayaan isku mootinaynaa subxaan allah bishii la rabay inaysan saacadi ka khasaarin ayuu wuxuu soo dhiganahayaa inuu wakhtigiisa dhan ku dayaco aflaamta musalsalaadka inuu fiirsado mid kalea jiro asaguna xadaya qofka acmaashiisa baabi'inaya waa suuqa oo la aadahayo oo qofka aan wakhtiga uu siinayo uusan u xadidnayn maalkaagii iyo dhaqaalahaagii buu salfanayaa wakhtigaagiina waa baabi'inayaa xanaaq iyo dembina waa kala kulmaysaa qayladhaan waa kala kulmaysaa beecaagu inuu xaaraan noqdaa dhici kartaa saaka saa u aadda galabta waxaad imaanaysaa adoo sifril yadayn ah wax xasanaadoo kuu diiwaan galay aan la arag dunuubta iyo dembiyadu ay kugu socdaan waxaa ka mid a kuwa qofka soonkiisa fasaadinaya moobeelkaaga caalamkii oo dhan aa halkaa ka daawanaysid waxaa laga yaabaa saa markuu qofku u taabto u furo dembiyadu inay ugu soo hoobtaan sida dhibicda roobka inay markiiba ugu bilowdaan hawdka qolkaanuu gelayaa kanuu gelayaa kanuu gelayaa kanuu usii dhiibayaa kanuu daawanayaa kanuu fiirinayaa ishiisuba wax ilaahay raalli geliya ku dhici mayso dhagihiisu wax ilaahay raalli geliya ku maqli mahayaan qalbigiisii waa madoobaan dembiyadii baa ugu socda maalinkii ramadaanka sidii dhibicda roobkay ugu da'ayaan saasuu u bilaabayba la bilowday markaasuu wuxuu qaadanayaa saacada dheer ku baabi'inaya waxaa ka mid ah asaar dhafarka habeenkii la dhafrahayo 5 saac iyo 6 saac waxaa arkaysaa kuwa turub dheelahaya kuwa habeenkii ku sugahaya ilaa saxuurta inay isku madadaaliyaan ilaahay macsidiis iyo caasintiis kuwana gacmahay taagayaan salaatuleyl iyo tahajjud bay ku jiraan ilin baa ka qubanaysa oo ka daadanaysa inna sacyakum la shatta gurigan waa laga ooyayaa gurigan ku dhaganna waa laga dhafrayaa saxuurtii baa lagu suganayaa telefisyoon iyo moobeel iyo ciyaar iyo sheeko kanna waa laga ilmaynayaa inna sacyakum la shatta acmaashiinu ilaahay wixii way kala tagsanta walaalayaal camalkaani waa bil sanadka dhan bil buu ka yahay sanadkii hore kuwii nala joogay imisaa tagtay oo maanta dhulka ka hooseeya oo aynan suurtagal u ahayn inay intaas oo kale oo khayra ay sameeyaan aynan suurtagal u ahayn hadduu awlaad fiican ka tegey laga yaabo inay u duceeyaan waxuun inay u sadaqeeyaan laakiin shalay faraxsanaa jamaacada masaajidkan ka mid ahaa maanta dhulka ka hooseeya hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ka badan wey oo xaqiiqo ah haddii ilaahay maanta adiga ku gaarsiiyo aad xaadir tahay imisaa soonku u dhashay ayagoo jooga oo maanta waxa weeyaan guryaha yaalla isbitaallada yaalla oo soondadaasi ku xiran tahay oo neeftii loo raadinayo sidaas waxa way naqsiga ka xiran yahay haddii laga qaado la leeyahay waa go'aya bishii way soo gaareen wayna soo haleeleen laakiin maxay ku soo haleeleen xasanaadkii iyo ajarkii ay kasban lahayn ma hayaan فيا أيها المسكين قفك مسكين كأ وما أنت إلهي عافماد أوسيي وما أنت هل كان سوق جاري وقت كوهري متقاند هذا ضدك ترب يقول ما نهيا قبوره مع المها وكبد دلين سيدي هوري ضدك التجيل بقى يصدح معها أو وربحين تانا قصينا هيا مال كستو قبوره عيكوية على نوع كسته وحلوق جبرية هاي سيدي سوق بكارها أو كلا أيام بيدك ويالا بل مالها قاركود waxay ii sheegeen dad xogaal ah inay ku leeyeen qabriga ma qodi karna adigu qodo ta ku daalan dadka xaafad aan laga dhiman way yarta maalin aameedna loo soo sheegayna wuu yaryahay dadku waxay u tagayaan tarab bay u dhimanayaan cudurkaana arkaysaani waa faafay xaqiiqo weeyaan inuu faafay oo muuqdo waxa la dhaha laga qarsan karo la inkiri kara ma aha
inta ka caafimaad oo ka kacday baa wax badan ka badan oo ka badan oo ka badan in badanna way u tageen ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmad ayuu ka leeyahay maanta ramadaana dad badan inay jiran yihiin kuwa badani waxa weeyaan dhulka ka hooseeyaan kuwaan la soo gaarsiiyay iyagoo caafimaad qaba ilaahay xikmad buu ka leeyahay ilaahay intaan ku shukrino oo ku shukrino oo ku shukrino waxa weeyaan bisha aynu ilaa shanna fadliga iyo khayrka ay leedahay aynu ku didaalo